wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland Mudane Saciid Sulub Maxamed ayaa maanta daafuray shir wada tashi oo ka dhaxeeya wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland iyo sidoo kale hay'adda cuntada iyo beeraha u qaabilsan ee qaramada midoobay ee FAO. shirkaasi oo ka dhacay Hotel Mansour ee magaalada Berbera. shirkaasi ayaa waxa uu ku saabsanaa diyaarinta qorshe hawleedyada shanta sano ee soo socota iyo sidoo kale habsami socodka fulinta ku aadan mashaariicda horumarinta xoolaha iyo kalluunka ee ay hay'addu fuliso. shirkaasi waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta iyo khubarada labada dhinac, waxaana halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland Mudane Saciid Sulub Maxamed oo ku nuuxnuuxsaday sida ay muhiim u tahay in qorshe laga yeesho kobcinta horumarinta kalluumaysiga iyo xoolaha, taasoo wax weyn ka tari doonta buu yidhi lafdhabarta dhaqan-dhaqaale ee dalka. sidoo kalena mas'uuliyiinta ugu sareysa ee hay'adda FAO oo uu ka mid yahay madaxa xafiiska hay'adda FAO ee Soomaaliland Cabdulkariim Baah ayaa xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan mas'uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland uga mahadnaqay wada shaqaynta joogtada ah ee ka dhaxaysa iyo sidoo kale isla xisaabtanka ay wasaaraddu ku qiimeynayso fulintooda ku aadan mashaariicda ay qabtaan. kulankan ayaa waxa uu Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa uu ka socon doonaa muddo 2 maalmood ah. Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid.